iyadoo labadii maalin la soo dhaafay oo ka socday magaalada Brussels shirka Soomaalida iyo waliba beesha caalamka kaasoo inta badan looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha amniga haweenka iyo waliba ganacsiga ayaa la soo gabagabadii shirka ayaa waxa ay suuro gashay in la kulmo qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb gashay shirka iyo waliba marti sharaf kale oo kula kulmay magaalada Brussels. Hussein Carab Ciise oo ah gudoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa marka hore iga warramay guud ahaan shirka sidoo ku soo gabagaboobay iyo waliba gaar ahaan amniga oo laga hadlayay qorshaha cad ee dawladda Soomaaliya ee la timid shirkan. والله runtii arintaas waxa weey moogtay anaku Soomaali ahaan waxa weey dhaliilaha waan isdhaliilna waa muhiim haduu khalad dhaco ama dhibaato timaado waan dib loogu noqdaa leeyahay bal waxaan soo dhaceen dabagal sax lagu sameeyaa meesha dhibaato jirtana la abaaro weeye marka runtii waa runta way dhaceen arrimo waaweyn way dhaceen maalmahan arintan kulli investigation culus baartaan way ku socdaan laakiin iyadoo waxaas jiraan hadana waa in barbar socotaa dib dhiskii oo marba haday wax dhacaan aan la joogsanin laakiin barnaamijkii la waday ee xasilinta Muqdisho iyo dalka oo dhan barnaamijkeedu in hor loo wadaa doorashooyinka Puntland oo kala doorashooyinka soo fool leh wararka ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Gaas oo damacsan yahay in waqti badan oo kororsado arrimahaas xabad kama jirto waxaas waxa dad aan moogtahay aan xaqiiqada aan la soconin weeye Puntland doorashadeedu dibna u dhici mayso waqtigeeda ku dhacaysa qofkii markaa tartamaya ha yimaado laakiin hadda in waxaan jirin la saadaaliyo oo dadka been loo sheego wax jira ma doorashada waa dhacaysa insha Allah shalayto shirka iimaantaba waxaa la arkay inta badan madaxweyne Axmed Madoobe in oo inta badan ka baxay shirka arrimahaasi wax ma kala socotaa ma anigu ma ogi wax shidaahu jira madaxweynuhu hadda maanta dhakhtar buu lahaa oo Germany baa liir buu aaday intaasun baa hadda shirka u dambeeyay oo ka maqla laakiin wax shidaahu aan ogahay ma jirto mas'uuliyiinta kula kulmay magaalada Brussels ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha xisbiga UCID Faisal Cali Waraabe asigoo iga warbixiyay sababaha ay u imaadeen magaalada Brussels iyo waliba in Somaliland ee shirkan qayb ay ka tahay in kale waxaa la isleeyahay markii la arko mudane Faisal oo shirka Soomaalida maadaama hadda inta badan indhaha Soomaalida iyo shirka laga soo qayb galayo oo Brussels asagana joogo sidee wax jiraan waxa weeye bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye halkan waxa ku shiraya dawladda Soomaaliya lagu magacaabay iyo dawladda deeqda bixin jiray dhowr qodob baa laga hadlayaa waxa weeye wax dhamaaday heshiiska hore oo New Deal waxa bilaabmaya mid loo bixiyay brad loo sameeyay partnership framework ka hor anagu waxaanu lanoo sameeyay waxa special arrangement oo de Soomaaliya waa 5 dawladood oo federal system samaystay waa dawladu anagu amba shan ha noqoto Soomaaliya amba toban noqotay anagu waa noo midoon dalku 60 kuma kasoo talaba dalbaanay anagu shan dawladood Soomaaliya kuma darsan shanta anagu de markaa shiriya dhex fadhiisan maynee dawladaha bixinaya dhaqaalaha ayaan doonaa calina halkan buu joogaa Somaliland community halkan bay joogaan jaaliyadi inaanu dawladaha si gaar ah ula shirno oo ilaa anagu heshiiskii tixraaciyo aan ku galay magaalada Istanbul 2013 dawladii Xasan Sheekh ila noo mar halkiyo special arrangement lana siiyo lanaguna ilaaliyo soo lacagta oo isticmaalino anaga aan la dhex galin waxaan qorqorayaa leeyahay dawlad goboleed baa weey ma Somaliland iyo magaalooyinkan calanka wada qaatay ayaa isku mid anoo Soomaaliya in Muqdisho iyo Hargeysa way dalku Somaliland hadda shirkan ee ka soo qayb gashay oo adiga hadda ay maatay ma dawladda Soomaaliya casimaad nidifisay marka mise beesha caalamka toos anagu bacasumad ma jirta anaga iska u socona anaga soo danta shay Soomaaliya u socona anagu Somaliland anaga isbixina budgetka anaga leh anaga danahay wadana waxa la fursad ah hadda madaxweyne Farmaajo maadaama halkan uu ku sugan yahay ma laga yaabaa in aan wax codadka ma qabo bahalkayga blackberry-ga waxa ku yaala Farmaajo Dubai Farmaajo Muqdisho Farmaajo Nairobi waan wada hadli jirnay dawladdu waxay sheegtay in wada hadalladii Somaliland iyo Soomaaliya dib ay u soo laabanayaan dawladdan Soomaaliya oo madaxweyne Farmaajo ku dhawaaqay marka arintaasi Somaliland ka waran anaga hor u sheegnay oo waxaan diyaar baan inaan wada hadalno laakiin de waa jawigii lagu wada hadlaha inuu jiro anagoo og inaan dawladahayn
anagoo og inaanu madaxweyne ahayn haddana maadaama la yidhi waa madaxweyne adduunka loo macaamilayo we can deal with him waan la hadli karana. cabdirashiid maxamed nuur cabdirashka, Universal TV, Brussels, Belgiumka.